بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. walaalaha Soomaaliyeed meel aad joogtaan ba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idinku ammaanyeelo. cidii dhibandhibka Allah ka qaado, cidii dan la Allah oofiyo, inta baan Allah deeqo, inta bugta Allah bogsiyo, intii dhimatay Allah u naxariisto, waalidiintan Allah u naxariisto, annagana Allah nooga daba naxariisto. dalka, diinta, dadka iyo dowladnimadaba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo badbaadiyo. waxaan ka hadlayaa afar qodob. qodobka koowaad waa baarlamaanka Soomaaliya. qodobka labaad waxaan ka hadli doonaa madaxweyne xasan sheekh iyo hadallo uu horey u yiri oo ku saabsan dastuurka iyo mudaxileedka. qodobka saddexaad waxaan ka hadli doonaa deni iyo marxaladda hadda ay ku sugan tahay Puntland oo u eg marxalad qirinqiir iyo colaad ah. qodobka afaraad waxaan ka hadli doonaa Muuse Biixi oo hawlo uu horey u arki jiray oo ka shaqayn jiray gobolada SSC isku dayay oo si maaragtay runtii nafla caarinimo ah isugu dayay. isagaan ka hormaraya. Muuse wuxuu isku dayay inuu doorto garaad, isagoo leh waxaan bedelayaa garaad jaamac garaad cali, garaadka guud ee beelaha SSC. taariikhdiisu waxa weeye garaadka bosishinkiisu ma aha bosishin lasoo doortee, waa saldanad guun ah oo dhaxal abka ab ah ku timi jaamac weeye. wax muuse u yaala iyo reerkaas halkaa degana ma aha, waa beel gaar ah oo ka mida beelaha SSC dega, laf ahaan garaad ay leedahay. walaa hargeysaan lagu dooran karin, walaa meel kalean lagu magacaabi karin, walaa odaygii miskiinka ahaayo waagii dhow inta la qabtay baryootameyo faratoon ahaabaan lug iyo laan midna ku lahayn iyo shaqo toonna kana hadli karin, waxna ku darsan karin. garaad jaamac aabihiis garaad cali garaad jaamac baa la oran jiray. waa saldanad guun ah oo muddo soo socotay. aabihii waa raggii dowladnimadii Soomaaliyeed ka qayb qaatay oo midnimadii Soomaaliyeed qaybta ka ahaa. wasiirkii ugu horreeyey ee Soomaaliyeed waxbarashada wey. jaamac isagoo yarba aabihii dhintay, waxay noqotay marka adeerkiis garaad cabdiqani inuu u sii hayo booska inta uu isagu weynaanayo. kadib markii uu koray wuxuu gartay inuu adeerkiis u daayo uu sii haysto inta waqtigiisu ka idlaanayo insha allahu tacaala ay ajashu u imaanayso. kadibna isagii bay kusoo laabatay. marka wax u baahan muuse inuu farafareeyo maaha, laakiin ujeeddadu kale muuse waxay tahay waxaa la bartay, horey loo bartay. reerkan waxa keliya oo lagaga adkaan karo waa in iyaga layska hor keeno, horgallo faratoonkaas iyo koore iyo wax dhintay oo aan waxba isku farayn oo qashin ah inta la rikuruud gareeyay kan hadda isku sheegaya inuu ogol yahay isaga garaad in loo magacaabo, qaad inta loo dhigay, caws loo dhigo, hotel halkaa uu iskaga qayilo iyo wixii balwada uu u baahan yahay halkaa lagu siiyo. waxaasoo kale inta la ururiyo markaa dadka laysku dhufto layska hor keeno. laakiin arrintaasi dhammaatay. muuse mideeye isagaa aaratuudkiisa iyo dabeecad xumadiisa iyo isqallajintiisa iyo kibirkiisa isagaa ku mideeyey reerku waa midoobay, horay u socdeen, xabad bay ka xigaan. wax alla wixii la kaxeeyo halkaa ka soo hadlana xabad bay u qoraan. kaa yarkaa hadda hadday qabtaan xabad bay ku dhufanayaan. iska daa inay garaad ka dhigaan, waa dilayaan. ma arkaysaa? marka sheekadaas sheeko dhimatay weeye. waxay ku tusaysaa 4 bilood markii uu gooja cadda ku jiray waxna ka qaadi waayey. horey baan u sheegay February 6 markuu dagaalka galay, maalintii ku xigtay baan sheegay kama adkaan kartid muusow nimanka ah. dagaal waa waxa ay yaqaaniin oo xirfadda u ah. iska daa dagaalkooda, heshiis iyo hadal wax ku raadi. 4 bilood baa u dhammaatay, gooja cadda waa soo dhaafi laayay. waxa u dambeysay hadda madfac buu soo riday, nin baa ku dhintay, baarar samaa Allah u naxariisto. iyagana intoo kale lagu hufay, sheekadii meesha ku aamusta. wadadii in badan oo ka mid a ilaa Yagoori waad arkayseen inay miinooyin dhigayaan oo shacabkii miinooyin ku le'anayaan. dee tala iyo caqli uu ku fakarana ma hayo. awooddiisiina halkaasay maraysaa. garaad jaamac baan bedelaya. garaad jaamacna waa haliyey xilligeedii iyo waqtigeedii kusoo beegmay. runtiina shaqadii laga rabay iyo booskii laga rabay iyo ehelkiis iyo tolkii iyo qaraabadiisa iyo dadkiisa iyo dalka Soomaaliyeed wixii kaga aadanaa موقف سليم وحميد قاتي أو أنه قوي ماينو
soomaali ka go'i mayno cuqdadna ma qabno ciddii go'aysa iyadoo taqaan mana raacayno qadiyadaasna kuma mid ma rabno kana mid noqon mayno mowqifkaas ninkeedii iyo xilligan ninkeedii waa jaamac weeye sharaf iyo maamuus iyo ammaan buuna tolkii iyo qaraabadii iyo ehelkiiba ka haysta iyo soomaaliba qodobka labaad baarlamaanka soomaaliya dood baa ka dhacday waxaan bogaadinayaa cabdiraxmaan abshakuur kelmad uu yiri oo hanjabaadana xasan sheikh baa la rabaa inuu maqlo oo arko haddii baarlamaanka gudihiisa laysku waraysan waayo waxna la kala maqli waayo dibaddaa laysku waraysanaya shalay wixii dhacay waa la ogaa yaan dib loogu noqon xil kororsi wuxuu ka bilaaban karaa waxaad adiga muddadaadu waa cayimantaha waa la gooyey wax lasoo dhaafayna dib looguma noqdo laga soo bilaabo lama dhihi karo waa laga bilaabo baarlamaanka soo socda iyo madaxweynaha soo socda 5 sano ha laga dhigo cid dacwo ka qabtaa ma jirto maxaa yeelay lagu arki maayo conflicted ma tihin haddaa conflict of interest adigiina interestiga ay ka dhex raadinaysa haddii lagu arko oo dantaadii ay kaaga dhex muuqato waxaagu lijiid noqon maya baarlamaankaanuna baarlamaankii ugu nasiibka darnaa weye dad aqoon-yahana dhex fadhiya oo PhD haysta 3 qof oo madaxda ka ahi unschooled weye waxaaba garanmayaan waxna ma soo baran weliba midka hadda ay maanta usoo dhiibeen abshirow waxaan ka yaabay isagu ma xishooda miya markay arrintu fool xun tahay isagaa loo soo dhiibaa layidhaha tag kuwa kalena waa dhuuntaan isagana waa ka waaninaya mar daba waxaan meesha hala soo fariisan wax noocaas oo kaleana ha soo qaadin mooshin qashina oo xilkaana loo kordhiye lacagtana loo kordhiye waxaase la yaab leh 18 reer puntland iyo 20 reer somaliland baa saxiixay mooshinkaas aad baan ula yaabay dee kolley rajaysan ka qabin meelahay ka yimaadeen inay iska sii durugsadaan oo waa shaqo tage ay iska shaqaystaan yay u muuqataa inay meesha u joogaan qodobkaasna intaasaan ka oranay baarlamaankii u liitay weeye ma la marsan karaa haa maxaa la marsan karaa wax alla wixii la doono xoogaa yaroo lacagoo loo daadiyo unbay ku filan waa daaqayaan kadibna horey u soconayaan laakiin cabdiraxmaan shakuur iyo odawaa labadaba waa ku ammaanayaa mowqifka adag oo ah innagayna ka dhex saara kadib aan ka hadalno qodobka haddii laga hadlayo xil kordhin midda soo socota ha noqoto haddii kalena looma baahna qodobka saddexaad xasan sheikh jirta madaxweynaha qalbi wax xasuusto ma leedahay indha wax akhriyo oo rikoodhkii hore madaxtooyada dhexdeeda u yaallaa sidii loo dhaqmi jiray arkiifyada xafiiskiisa hoosteeda ku taallay yaaliin wixii dalkan soo maray oo dhan ay ku xeraysan yihiin ma wiilasha inta u yeeratay bal heshiiska noocaasa warka noocaasa shirka noocaasa wixii ka soo baxay iyo wixii laga dooda hallay tuso minitiska yaalla ma dhihi kartaa maxamed caqliga ha kuu soo noqdo war waa la yaqaanaa waxaan horaa loo soo arkay maxamedow haddaad bofala fadhida adiga annagaa soo joognay waa la yaqaan meesha waxaas waddadaas mugga la soo galo meesha ku dhammaato waa la yaqaan qofkii qorya badanaa haysanaayo hortaa jiraa soo waayey ya hortaa jiraa soo waayey lagaa hub badnaay lagaa ciidan badnaay lagaa dad badnaay war waxaasi waa soo shaqay waayeen waa dastuurka ha la dhowro mudaxilaadka ha la dhowro rabitaanka dadka soomaaliyeed ha la dhowro rabitaankooda lagu xukumaayey qasab lagu xukumaynine rabitaankooda ha lagu xukumo meeqa qoryo wadato qoryo la duufaysaa magaaladan xamar intaad joogteen soo martay oo soomaaliya ajnabiba leh meeshay ku dhammaadeen kulli waa la ogyahay maxamed cabdullaahi farmaajo ka noqo godkaas ha ku saad maqlaysaan madaxweynuhu wuxuu leeyahay waaye waddadaas meel marka hore dhegtaada iyo afkaagu hays maqleen marka labaad wuxuu leeyahay dastuurka isagoo la hadlaya madaxweynihii hore farmaajo dastuurka hala ixtiraamo don't touch it xil mudaxileedkana hala ixtiraamo waa la yaabe dadku waxay ka hadli jireen xil kororsi iyo muddo kororsi marka arrintooda ama muddadooda ay gabaabsi tahay xasan oo 1 sanaa joogtay 3 baa kuu haray waxaa rabtaa qaban kartaa 3 sano maxaa uga hadlaysaa xil kororsi hadda xafiiska markaas soo gashay baa bilowday mooshinkaanu 4 bilood buu yaallay xafiiska markaas soo gashay baa bilowday halkaanaan ka sheegnay inaad rabtid 5 sano inaad ka dhigatid aakhirkii waa la timi waay maxaa ugu baahan tahay muddo kororsi ma is ilowday shalay inaa xabad riday oo warlord noqoto dad laysay aakhire ay aadeen maalin laguma dari karo hadalkaas ina adigu tiri ma ilowday waxay ku mahmahdaa carabtu atanha can khuluqin wa ta'tii bimithlihi caarun calayka idaa facalta cadiimu war ma dabeecad iyo dhaqan baad caayaysaa oo dad ku eedaynaysaa oo ku ceebaynaysaa
isla isagiina ma la imaanaysaa ceeb bay kugu tahay weyn haddaa arrintaas samaysa madaxweyne doorasho qabo qof iyo coda guddigii doorashooyinkana magacow halkaasna kaga har arrinta xil baan kororsanayaa cidina kaa yeeli mayso sharaf iyo karaamana maaha wayna waxaana kaa muuqda xukun jacayl iyo lacag jacayl iyo dan shakhsiya inaad uun ka dhex raadinaysid waxaa wadidoo dhan bay sabataaj ku noqon soomaali u danayn maysid adaa danaysanaya baa dadka usoo baxaysa marka wixii fiicnaayo a qaban lahayd oo ay ka mid ahay doorasho qof iyo coda in dalka la gaarsiiyo oo xukunka dadka lagu celiyo ha wasakhayn oo ha ku wasakhayn 5 sano ha la iiga dhigo madaxweynaha igu xiga 5 ha looga dhigo dheh adigu inaad noqotid baa dhici kartay markaa u tartan xisbiyada badan waxaasoo dhan waa loo baahan yahay laakiin adaa wasakhaynayo wixii waa najaasaynaysaa najaasada ka daa warkaa afkaaga iyo dhagahaagun hays maqleen shalay waxaa diiday cidna ha ku dayin shalay waxaa qoryaha ka qaadatay oo dad ku laysay oo muqdisho u gubatay cidna ha kula talin inay samayso ha ku tashan inay kaa yeesho bannaankaa laysku waraysanayaa hadalka ahi waxaa lagu xasuusinayaa badbaado qaran wixii la oran jiray qodobka saddexaad deni wuxuu si cad ugu sheegay odayaasha iyo sucamada iyo madaxda siyaasiyiinta qayb ka mid a doorasho qof iyo cod ah baa January 8 dhacaysa tii dhici lahayd January 8 qof iyo cod baa loo bedelay 66 dambe loo noqonayaa ma jirto xisbiyada ilaa 9 baan gaarsiinayaa dastuurkana waa furayaa wax badan baan laga bedelayaa kulligood anigu waa taageersanahay dastuurka in wax laga bedelo oo wixii ka dhiman laga bedelo 66daas in laga takhaluso dadka shacabka ay soo doortaan xildhibaanada nambarkii raba lagu heshiiyo laakiin ay soo doortaan see loo sameeyaa degmooyin baa lagu saleynayaa maxaa lagu saleynayaa qabiil baa sidii oo kale lagu saleynayaa iyo 66 ay ku saleysnaayeen ma gobol baa loo kala ma aqaan laakiin in dastuurka la furo wixii ka dhiman laga bedelo in xisbiyada la badiyo oo waliba unlimited laga dhigo in madaxweynaha iyo xildhibaanka labadaba laga soo doorto shacabka iyo dhulka laga soo doorto kulli anigu waxba kama qabo laakiin dhig dhulka iska wareeji adigu guddigan doorashooyinka kaloonka ah oo haddana la isku haysto xiingalool iyo buurtinle iyo meelo badan ay buuq ka socdo oo dadku waxay filayeen oo codeeyeen iyo waxa u soo baxay ay kala duwan yihiin oo gacan ku rimiska ah dhig guddi loo dhan yahay ummaddu ha doorato doorashadana ha loo aado midda kale qodobka aad diidan tahay oo ah in la furo diiwaangelinta waxaa cad inaad adigu dadkan diiwaan gashatay ayna u badan yihiin dadka IDPska xeryaha jooga kaararkoodiina shakhsiyaad adiga kuu shaqeeya ay gacanta ku hayaan kun ay gacanta ugu hayaan oo $10 iyo $20 loo tuurayo maalinta doorashada oo le imow 20 baa lagu tuurayaa imow hebel u codee waxaas doorasho lama yiraahdo waxaa ka dhalanaysa waxa hadda laga badbaadiyay waxaan ognahay inaad ciidan ka soo dirtay gooja cadde by the way waxa la yiraahdaa xerada PNPF ta baa boosaaso looga bixiyay gooja cadde maxay isaga eegin gooja cadde iyo xeradaasi madaxweynuhu kuma dhaco inuu seexdo madaxtooyadii Puntland ee boosaaso markuu boosaaso tago wuxuu seexdaa xeradaas iyadu isku aaminaa marka gooja cadde loo bixiyay godkii gooja cadde ayuu isku aaminay halkaasaa loo bixiyay gooja ciidan buu soo diray ciidankaas qardhaa waxaa ku qabtay boqorkii iyo isimadii iyo cuqaashii reer qardhood waana ku mahadsan yihiin laba sababood bay sheegeen ciidankaanu inuusan ciidanka uu duulaanka ku yahay oo ah ciidankii garowe joogay oo jimcaale watay uusan ka awood badnayn oo uusan muquunin karin uu ka awood yar yahay oo markaa iyaga laftigoodu ay halaka ku socdaan qodobka labaadna in loo arkayo duulaan qabiil oo nugaal baa duulaan waxaa ku qardho loo arkayo isagu madaxweynuhu dagaalka waa horiyaa laakiin caaqibadiisa ma oga mana fiiriyo kama danna kama leh intaasoo jeer buu dagaal ka riday Puntland waxna kuma aha hadeerna inuu mid kale ka rido laakiin markuu ciidankaas soo diray waxaa la ii sheegay ciidamadii garowe joogay iyaguna inay ka baxeen magaalada bardada waxa ay degeen oo jidka u sii galeen oo yiraahdeen xaggaanu ba isku arkaynaa magaalada maxaa la isula imaanaya oo dagaal uga dhacaya duurka la isku arkaya arrintaasna ay odayaasha qardho ay ku hagoogteen oo ay saa ku kala badbaadiyeen kuwaana odayaashii nugaaleed ay ka soo saareen meeshii oo lagu soo celiyey xeryahoodii arrintaas waxaa dabkaas kicinaya oo hurinaya
ودورشو بوب أو ربع سعيد نقبته وحلا ياب لي ومدى ربعنا درين سيرة بنتلان والسعيد كيدن لدورشو قفي عدن آذينا سومالي ذا شلي وحولها دولة معمول قبلاتية إيه دولة فدرالكا وإني نقود دايدان markay leeyahay waa idin ku dayanay oo waa idin raacnay wixii waxba kama jiraan ma ogoli shalayna farmaajo u diidanaa haddana waa u diidan yahay idinka marka waa un shaati uu tolanaye marna doorasho yani qof iyo codaho daacada oo runa oo transparentiya ma ogola mana rabo raallina kama guddigii doorashooyinka dadkii madaxda ka waxay soo casileen arrintaas ay ahayd taliyii ciidanka booliiska ilaalinayay sababta uu cayriyana taas ay ahayd inuu boobuu rabaa qolo marka gacan ku rimiso isagu uu wataho bullet proof iyo baabuur madaafiic lagu ilaaliyo uu u sameeyey baa guddiga doorashooyinka la yidhaha yay ka baqayaan oo iska ilaalinaya ma xisbiyaday ka baqayaan yaa laga ilaalinaya guddiga doorashooyinka inuu shacab ahaada wey inuu cid ka baqa maaha inuu bullet proof iyo gaari qafilan iyo askar ilaalisa saarnaada maaha waa inuu xor yahay because cadaalad buu ku shaqaynaya marka arrimahaas oo dhan waxay tusayaan wixii fiicnaa baa waxaa loo dhiganayaa isbaaro markaasay waxay noqonayaan qashin waxa uu ka sheekaynayo doorasho qof iyo coda dadkoo dhan baa rabo taageersan laakiin isagu hadhigo banooniga anigaa tartamaya askarigii rifriigiina anaa ah arbitarihii cayaartooygiina anaa ah ma shaqayso marka maxaa dhici doona in laysku laayaa dhacaysa haddii uu wax maqli waayo 10 jeeraan ka dignay way ku socotaa hadda qoryaha la soo haystaa la yeeli maayo cidna cid ma khasbi karto waan idin xasuusinayaa gaalkacyo waagii dowladda Puntland la dhisay gaalkacyo yaa station laga furay marka nin Cabdidheere la yiraahdo baan u malaynaya inuu ahaa magaciisi baa loo dhiibay marka cidna lama khasbi karo markii la yiraahdo hebel soo xir wuxuu yiraahdaa in adeero ina keen annahay ceebayn adnahay ceebayn ايش بنو تجينا وشحينا تربان عيارنا شهبا ودعبنا وشاكيسانين waxba ka xumaan miyayna kici marka in adeero iyo walaalo iyo dawladda aan u ekaano ayaa lagu wada joogay leysma dawladeeyo leysana xog sheegan kari maayo waxba waa ka baran laayahay PSF iyo boosaaso wixii ka raacay waxba waa ka baran laayahay mid kale uu raba haddana inuu madaxa geliyo mana kala jecla waa ridaya abu ilaahay waxa ka bariyaa dagaalka ay ka badbaadiyo عقلنا شقيه dadkii hore wax badbaadin jiray odayaashiina ay hawsha gacanta la galaan wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh